Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious, the most merciful. In Ramadan wanaagsan waad salaamaya kulligiin. Waa tobankii habeeney ugu khayrka badnaa ayaynu ku jirnaa. Ilaahay hayna waajiyo, hayna waafiyo, oo haynaga aqbalo Ramadaanta aynu soomayno. Halkan waxaan doonayaa inaan uga jawaabo nin kasoo jeeda Puntland ayaa qurbaha intuu yimi wuxuu isugu yeedhay niman tolkiisa ayaan u malaynayaa inay tahay shir uu la galay. Ayaa wuxuu ku leeyahay hayaay ka kac fadhiga Somaliland ayaa la ictiraafayaa, wadankii baa la kala goynayaayo. Somaliland waxaa ku jira macdan aad iyo aad u badan, badeedana waxaa maraa 30 ka mid a 30% maraakiibta adduunka oo dhan baa mara. waa kan caynka weeyaane, waa in hayaay joojiyahay, sideeban u kacnaaye, sideeban u taga ayuu kula telinaya. wuxuu kale ku daray nin afrikaan ah oo madow ah oo afrikaanka wadamadooda ka qora wax ayaa wuxuu ku yidhi waa niyahow Soomaalidu maxaa mar kasta waddan kasta oo ay tagaan ay u hagaajiyaan kooda mooyaane. hadda dhegeyso, wuxuu yidhi nin baa wuxuu yidhi sidee bay Soomaalidu meel kasta oo ay tagaan ay u hagaajiyaan aanay waddankooda u hagaajisanin. nimankana wuxuu kula talinayaa hayaay ka kaca Somaliland baa la ictiraafayaa, Somaliland macdan baa ku jirta, sidee baynu u qabanaaye, sidee baynu u dhibaataynaaye. bal wuxuu ninkii mahmahdii uu sheegay uu leeyahay Somaliland Soomaalidu meel kasta tagaana way hagaajiyaane, waddankooda maxay u hagaajiyaan. adana wuxuu kula gubaabinaya nimankan uu la fadhiyo sidee baynu u dhibnaa Soomaalida, sidee baynu u dhibnaa Soomaalida wax qabsanaysa ama wax qabsatay. ninkani waxaan ogeyn macdanta waddankooda ku jirta, baadroolka ku jira Garowga oo keliya ayaa waxaa laga yaabaa inuu ka badan yahay baadroolka khaliijka ku jira oo dhan. waddanka Soomaalidu degan tahay meel aanan wax wanaagsani ku jirin ma jirto. ilaahayna ha u siyaadiyo kulligood. ilaahay oo boqorka oo kariimka baadroolka ku jira Garowga ay la soo baxaan oo garansiiyo ay ku dhergaan, ay ku nimcaystaan. aamiin. idinkuna aamiin dhaha. ilaahay oo Soomaalidu meel kasta ay joogaan wanaag baa ku jiray. ilaahay oo wanaaga tus. aamiin dhaha, aamiin dhaha. waa Ramadaan ilaahay haynaga aqbale. inta aad kula tirinaysid nimankan sidee baan u qabtaayeen aan u joojiyaa. niman walaalahay oo aad ku sheeganaysid waa walaalahay, aad leedahay waddan baan xitaa wada leenahay, sidee baan u dhibaa aan u joojiya. inta aad kula tirinaysid miyaad ku fakartid war sidee baan u keensanaa shirkad baadroolka Garowga ku duugan soo saarta, kaasaynu ku dhergaynaa oo ka badanaya adduunka oo dhan. Soomaaliya baad sheegaysaa ilaa Afrikaanka ayuu gaadhayaa. waadii arkay ceelka khaliijka in lagu munaafacsaday. Soomaalida oo keliya adduunka carabta oo keliya mee Afrikaanka oo dhan baa ku munaafacsaday. wuxuu gaadhay Yurub, wuxuu meel aanu gaadhin ceelka laga soo saaray khaliijka nimcadiisa ayaa waxaa ka badan ka Garowga ku jira. inta aad kula telinaysid ummad sidee baynu u dhibnaa dad kale oo walaalahay wax tirsaday. heerdhe sidee baynu wuxuu gaadhnaa. ilaahay ha idin tuso. Chinesku wuxuu ka fogaanaa 100 sannadood ee soo socda sida wax u qabsan lahaa. adna waxaad ka fikraysaa sidee baynu qaar wax doonaya inay qabsadaan aynu uga hor istaagnaa, aynu u dhibnaa. waryahay carruurtaa ku dhimanaysa badda maalin kasta ee doonyaha kulliqay waxay u badan yihiin dhulka. carruurta dhulkiina ka timi, carruurta intaan badda ku dhiman lahaayeen heerdhe ama ay dagaal ku dhammaan lahaayeen, waxaad ku talisay sidee baynu wax u qabsanaa. nimcooyinka ku duugan ee ilaaha boqorka hayna siiyey ee dhulka cagaha hoostiina ku jira sidee baynu ula soo baxnaa. taasaa lagu fakaraa. ilaahay ha idin garansiiyo. wasalaamu calaykum.